Nicaragua waa dal ku yaala bartamaha Ameerika lehna taariikh dheer oo laga dheehan karo gumaysi, dagaalo sokeeye iyo xukun military. Inkastoo uu yahay dal dimuqraadi ah magac ahaan, haddana dhab ahaan waa mid keligii taliya hoostaga, waxaana madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ah lamaane wax walba ay hoos yimaadaan. Haddaba maxaan ka ognahay sooyaalka siyaasadeed ee dalkan iyo marxaladaha uu soo maray? Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre. Sandino vive! Dalka Nicaragua wuxuu qayb ka ahaa kacdoonkii balaarnaa oo ay dalalka gobolka kaga soo horjeedeen gumaysiga reer Yurub, wuxuuna xorriyadiisa si rasmi ah u helay 1821 markaas oo uu ka xoroobay boqortooyadii Isbaanishka si la mid ah dalalka kale ee Latin America. Kadib markii uu xorriyadda ka qaatay Spain, wuxuu dalkan muddo kooban ku jiray midowgii loo yaqaanay Federal Republic of Central America, balse 1838 ayuu si rasmi ah uga baxay una noqday dal madax bannaan. gaar noqoshadaasi ma aysan horseedin nabad iyo hufnaan maamul, oo dalkan waxaa ka qarxay dagaal sokeeye oo ay weheliyaan loolana siyaasadeed iyo faragelino shisheeye, gaar ahaan faragelintii Mareykanka. Sida guudna taariikhda dalkan waa mid laga dheehanayo dagaalo sokeeye, afgembiyo iyo halgan hubaysan. qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad waxaa dalkan si weyn uga aloosnaa hardan u dhaxeeyay laba xisbi oo awood ballaaran ku lahaa siyaasadda Nicaragua, waxayna kala ahaayeen laba xisbi oo si weyn u kala afkaar duwan. mid wuxuu ahaa liberal, midna conservative. waxay si joogto ah ugu dagaalami jireen xukunka dalka, waxaana badanaa dagaalkooda ka faa'iideysan jiray dalal shisheeye sida Mareykanka oo si toos ah u faragelin jiray dalkan. William Walker oo ahaa nin Mareykan ah ayaa intii u dhaxeysay 1855 ilaa 1857 ayaa qabsaday Nicaragua isagoo wata ciidan calooshadu shaqaystayaal ah, wuxuuna isku caleemo saaray madaxweyne isagoona damacsanaa inuu dhiso dawlad loogu talagalay dadka caddaanka ah ee Mareykanka. sidoo kalena wuxuu doonayay inuu bilaabo ganacsiga adoonsiga. isbahaysi ay ku wada jireen dalalka Costa Rica, El Salvador, Guatemala iyo Honduras ayaa weeraray dawladda Walker, waxaana William Walker la toogtay 12 September 1860 kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ku kacay dembi ah filibustering. Filibustering waa eray la isticmaali jiray qarnigii 19aad, waana mid tilmaamaya isku day ay shakhsiyaad ama koox hubaysan ay samayso si ay u qabsato waddan kale, kooxdaas ama shakhsigaas oo aan haysan ogolaansho dawladeed. ciidanka Mareykanka wuxuu dalkan joogay muddo dheer oo xiriir ah, gaar ahaan intii u dhaxeysay 1912 ilaa 1933. Mareykanku wuxuu doonayay inuu gacanta ku hayo marinada muhiimka ah ee ka gudba Atlantiga ilaa Pacifica. sidoo kale wuxuu ilaalin jiray danihiisa ganacsi, gaar ahaan shirkadaha Mareykanka ee maalgashaday dhinacyada dalkan sida beeraha mooska iyo bunka, wuxuuna aalaaba ku dadaali jiray inuusan dalkan yeelan xukuumad ka janjeerta danihiisa, asigoona ka hortagi jiray kacdoonada aan danihiisa ka turjumayn. faragelinta ciidan uu Mareykanka ku hayay dalka Nicaragua, shakhsiyaadka sida weyn uga dhiidhiyay waxaa ka mid ah Augusto César Sandino oo ah haliyey kacdoonsida ah oo reer Nicaragua, wuxuuna hogaamiyey kacdoon hubaysan oo ka dhan ahaa ciidamada Mareykanka ee dalkan ka howlgalayay. Sandino waxaa 1934 dilay ciidamadii la oran jiray National Guard, kuwaas oo uu hogaaminayay Anastasio Somoza, kaasoo markii dambe noqday madaxweyne keligii taliya ah. qoyska Somoza wuxuu dalkan ka talinayay muddo ka badan 40 sano, iyagoona ku sifoobay keligii talisnimo iyo musuqmaasuq xarka goostay, waxaana la oran jiray Nicaragua waa hanti gaar ah oo reer Somoza ay leeyihiin. jabhad loo yaqaanay Sandinista National Liberation Front ayaa bilowday dagaal qoto dheer si ay xukunka uga tuurto qoyska Somoza. bishii Luulyo ee 1979 ayaana ugu dambeyn la afgambiyay xukunkii reer Somoza. markii Sandinista ay la wareegtay dalka, Mareykanka gaar ahaan dawladdii madaxweyne Reagan waxay taageertay jabhad garabka midig ah oo loo yaqaanay Contras si uu Mareykanka meesha uga saaro xukunka Sandinista. dagaal sokeeye oo uu dhiig badan ku daatay ayaa dhacay 80meeyadii qarnigii tagay, waxayna xilligan Nicaragua dhexda kaga jirtay xasilooni daradii ugu xumeyd ee guud ahaan gobolka ka dhacday. Sandinista waa urur siyaasadeed iyo jabhad halgan oo la aasaasay 1961, wuxuuna magaceedu u laabanayaa oo lagu dhisay magaca halgamaagii reer Nicaragua ee Augusto César Sandino. waxay ku guuleysteen inay afgambiyaan keligii taliya ee Anastasio Somoza, waxayna sameeyeen isbedelo bulsho oo baaxad leh, ayagoona diiradda saaray qaybinta dhulka, in la helo waxbarasho bilaash ah, kobcinta daryeelka caafimaad
iyo olole ballaaran oo bulshada lagu barayay wax akhriska. Sandinista waxay u janjeertay dhanka fikirka shuuciga, waxayna xiriir la lahayd Cuba iyo Midowgii Soviyeeti. tani ayaana keentay in Mareykanku si toos ah u taageero kuwii ka soo horjeeday ee lagu magacaabayay Contras. 1984 Sandinista waxay qabatay doorasho guud, waxayna ahayd doorashadii ugu horeysay ee rasmi ah tan iyo markii ay afgambiyeen xukunkiisa Musa 1979. Daniel Ortega oo ahaa hogaamiyihii kacdoonka ayaa ku guuleystay doorashadii 1984. Mareykanku waa uu diiday natiijada doorashada oo wuxuu taageerayay mucaaradka hubeysan ee Contras, wuxuuna Sandinista ku eedeeyay inaysan ahayn dimuqraadi. xukunkii Sandinista waxaa wiiqay cadaadiska dibadda kaga imaanayay iyo dagaalkii sokeeye, waxayna xukunka ku waayeen doorasho la qabtay 1990. laakiin waxay soo rogaal celiyeen 2006 markaas oo sidoo kalena uu mar kale xukunka dalka qabtay Daniel Ortega. 10 January ee 2007 ayuu xilka si rasmi ah u qabtay, ilaa maantana waa madaxweynaha Nicaragua oo muddo ku dhow 30 sano oo xiriir ah ayuu dalkan hogaaminayaa, halka qarnigii tagayna uu 5 sano oo ka mid ahaa madaxweyne. sanadkii 2014 baarlamaanka oo uu ka haysto aqlabiyad buuxda ayaa ansixiyay in dastuurka isbedel lagu sameeyo, meeshana laga saaro in la xadido muddada madaxweynenimada si uu Daniel markasta isugu soo taago doorashada. maxkamadda sare, guddiga doorashada iyo hay'adaha kale ee madaxa bannaan waxaa si buuxda u maamula xisbiga Ortega. kumanaan qof oo mucaarad ah ayaa la xiray, la caburiyay ama la musaafiriyay. ka hor doorasho kastana siyaasiyiinta sida dhabta u tartami lahayd waxaa lagu eedeeyaa khiyaano qaran si uu Ortega u helo fursad uu keligii ku tartamo. wuxuu samaystay nidaam qoys ku dhisan. xaaskiisa Rosario Murillo ayaana ah madaxweyne ku-xigeenka dalka tan iyo 2017. Rosario Murillo waa mid awood badan, waxayna si weyn dalka ula xukuntaa Ortega. keliyana ma ahan madaxweyne ku-xigeenka dalka ee sidoo kalena waa afhayeenka rasmiga ah ee dowladda, waxayna caan ku tahay adeegsiga erayo leh macno diimeed iyo falsafadeed. waxaana lagu yaqaanaa khudbado leh murti diimeed, suugaan iyo hal ku dhigyo u laabanaya dhanka miyiga. ni carácter ni fortaleza para seguir llevando la bandera. waa la taliyaha ugu sareeya ee Ortega, waxayna gacanta ku haysaa wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo xiriirka dadweynaha. dad badan ayaa ku tilmaama inay tahay madaxweynaha dhabta ah ee qarsoon, waana mid la dhageysto in ka badan inta la dhageysto Ortega. waxaana aalaba la xiraa dadka eedeeya ama wax ka sheega Rosario. waxaana dalkan ka jirta oraha caan ah oo tiraahda Daniel waa madaxa, Murillona waa maskaxda. mucaaradka dalkan waxay la kulmaan cadaadis ciidan iyo mid sharciyeedba, waxayna dowladda Daniel Ortega si nidaamsan oo qorsheysan u burburisay awoodda mucaaradka. waxaa jira sharci la yiraahdo khiyaano qaran oo qof kasta oo dowladda dhaliila ama xiriir la leh hay'ado dibadda ah ayaa lagu eedeyn karaa inuu qatar ku yahay qaranka. sidoo kale waxaa jira sharciga xakameynta warbaahinta oo dowladda ayaa go'aaminaysa waxa saxda ah iyo waxa qaldan. marka laga yimaadana warbaahinta, xitaa kaniisadaha ayaa la kulma xakameyn, wuxuuna Ortega xiriirka u jaray Vaticanka ama kaniisadda ugu weyn ee Katoliga. sidoo kale wuxuu amar ku bixiyay in kaniisado badan la xiro ama laga eriyo wadaadada haysta. doorashadii 2021 waxay ahayd fursaddii ugu dambeysay ee heli lahaayeen mucaaradka doonayay in ay Ortega kaga adkaadaan sanduuqa codka. balse inta aysan doorashadu bilaaban 5 bil ka hor, waxaa la xiray 7 musharax ee ugu waaweynaa mucaaradka, waxaana lagu eedeeyay arrimo dhowr ah sida inay wadaan afgambi, inay taageero ka helaan Mareykanka, iyo inay warar been abuur ah faafiyeen. waxaana loo adeegsaday sharciga ilaalinta qaranka. bishii February 2023 dowladda Ortega waxay si lama filaan ah xabsiyada uga soo saartay 222 maxbuus oo siyaasad u xirnaa, waxaana kadib la saaray diyaarad ku socotay Mareykanka ama Washington. waxaana inta aysan u safrin Mareykanka laga reebay waraaqaha dhalashada ama wax walba oo cadeynaya in ay Nicaragua u dhasheen. Nicaragua waa dalka ugu saboolsan ee ku yaala bartamaha Ameerika, wuxuuna leeyahay dhaqaale ku tiirsan beeraleyda yaryar, warshado wax soo saar kooban leh iyo lacagaha ay diraan qurbo joogta. waxayna xukuumadda Ortega taageero dhaqaale ka heshaa dalalka sida Shiinaha iyo Ruushka. in ka badan 45% oo shacabka dalkana waxay ku nool yihiin heerka saboolnimada. shaqooyinka la heli karana waa kuwa mushaar ahaan yar oo $1 ilaa $2 maalintii ah. laga soo bilaabo 2018 in ka badan 700,000 oo qof ayaa ka tagay dalkan, oo in badan oo ka mid ah ay tahriibeen. Nicaragua waa dal la gaar ah arrimo badan marka la eego Latin America,
waa dal doorasho laga qabto haddana kuwii tartami lahaa la xiro, dal ay lamaane isqaba ka yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, dal sooyaalkiisa siyaasadeed uu Mareykanku si weyn uga dhex muuqdo.